magaaladaas kasoo bilaabatay ceelasha kasoo bilaabatay haddana meesha 2026 la geli rabo 2026 dhammaadkeeda marayo joog marxaladii kala duwanaa ee soo martay balka hor runtii marxalado kala duwan magaalo kaste markii la hadlaayo waxaa jira marxalado ay soo martay waqtiyo hore waqtiyo dhexe iyo waqtiyo dambe dhulsamareeb waqtiyadii hore waxay iska ahayd magaalo yar oo tuulo ah oo ceelasha iyo deegaanadaas xilliyada dhexe oo talyaanigu uu yimid talyaanigu waxa laga qiyaasaa inuu magaaladan yimid 1925 waxayna ka mid ahayd beesas talyaanigu military uu ka samaystay 4 magaalo ilaa 5 magaalo bartamaha Soomaaliya iyadoo Gaalkacyo iyo Matabaan wuxuu rabay inuu qabsado boqortooyadii Baargaal iyo boqortooyadii Hobyo marka wuxuu sameeyay beesas military oo dhulsamareeb ay ka mid ah oo uu ka duulo marka dhulsamareeb waxay ka mid ahayd beesaskii military ee talyaaniga sidoo kale magaaladan laba kaclinteedii labaad aniga waxaan isleeyahay xilligii maamulka Afis ama maamulka Talyaaniga Afis waxa la yiraahdaa Administrazione Fiduciaria Italo Somalo waa maamulkii dakhliga Soomaaliya markii Talyaanigu ku soo laabtay 1950kii magaalada Dhusmareeb horumar badan ka dhacay xilliyadaasi waxa la dhisay Daardheer waxa la dhisay xeradii boostada isgaarsiinta xaruntii boostada sidoo kale waxa la dhisay iskoolka Dhusmareeb oo dadku shimbiraale iyo magacyo kala duwan u yaqaanaan 54 marka xilligaas magaaladu xadaaradoodii bilaabatay iyo saldhigga booliska marka xilliyadii dhaxana waxay ahayd xilligii dawladii kacaanka magaaladan markaad fiirisid dadka hore taariikhda akhrinaya la fiirisid Dhusmareeb waxay ku leeyihiin waa magaalo multicultural waa magaalo Soomaaliya oo dhan soo xukunta gudoomiyaasha gobolka markaad fiirisid dadka hadda deegaanka madaxda ka ah dad ka duwanaa soo bixi jiray oo deegaano kala duwan oo Soomaali ah oo fogfog ayaa madax halkan ka jira marka waxa cadeynaysa in ay ahayd magaalo la wada degan yahay Soomaaliya dhan wada degan yahay sidoo kale xilliyadii kacaanka magaalada waxa ku yaalay waxay ahayd magaalada saddexaad ee ugu xarumaha badan Soomaaliya markii laga tago Muqdisho iyo Hargeysa marka laga hadlay xarumaha dawladda marka waxay halkaas cadeynaysaa in ay ahayd magaalo weyn oo Soomaaliya dhan sidoo kale magaalada waxyaabo cajiibka magaalooyinka lagu qiimeeyo wax kamid ah magaaladan waxay leedahay tiyaatar oo ilaa hadda internetka laga heli karo riwaayadihii kala duwanaa ilaa 10 riwaayad waxaan arkay program Aweyska Washington ra'iisul wasaarihi hore dawladda Puntland soo noqday Cabdulle Cali Kaas oo ka hadlaya riwaayado uu ka qayb galay maalin hore booqday xaafadiisii tiyaatarka iska soo horjeeda marka wuxuu leeyahay riwaayado badan oo hobaladii waa bari markii riwaayad Muqdisho lagu dhigay gobolada ayaa loo qaadi jiray marka riwaayado badan halkan lagu sameeyay marka usaraad nidaamaya Dhusmareeb lagu dhigo oo internetka ku jirto heeso badan oo caan ah halkan lagu qaaday marka runtii waxay cadeynaysaa in ay ahayd magaalo xadaarad leh xilli hore